gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Wiciid Faysal Cali Waraabe ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda xadhigga jarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera kaasi oo dib u dhis casri ah ay ku sameeyeen dowladda Imaaraadka Carabta sidoo kale munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe ayaa wax khudbad ah aan ka jeedin munaasabadaasi haddaba gudoomiyaha ayaa waxa uu ka hadlay sababta loo siin waayay hadalkii uu ku lahaa munaasabadda magaalada waan ka xumahay waxaan u xaflad qaran shisheeyna la joogay in la siyaasadee maanta ma ahayn in la siyaasadee waxay anaga chance la siiyay hadalle kaale inta asmad oo mar labaad inta asmad loo keenay lana aflagaaday anaga aan la noo dhiibin magaalada chance la siiyay marka madaxweyne maanta isagu waa wasi fiican buu hadlay alxamdulillah rabbil caalamiin waan ku boorinana inuu isna dhameystiray go'aankii laakiin waxaan sheegayaa yarkan haas ahaan jiray Cabdirasaaq garoonka Shawail Cabdirasaaq kuma qofku iyo weekaada Cabdirasaaq waxa ninkii isgaarsiinta loo dhigay lagu eriyay musuqmaasuq wasiirka u horeeyay lagu eriyay waa musuqmaasuq wakaas ay u dafreen bishii April waxaan isku damay hotel ila Sheraton Hotel oo Dubai aan isku nimay waan maxaa dhacay waxay waan dib ugu noqon maayo Soomaaliland intuu ninka Muuse Biixi joogo intuu yeeray igu yiri waxaan ka dhigay ku sharaxayaa waxaan kula tuntusay noqotid mid gudoomiyaha baarlamaanka ayuu ka baxay marka halkaas iga dhamaatay dib ugu noqon maayo igu yiri معاون ما أنت وحكي لي ماشي تو قصب ينقلي حفلتي فرحت هاد أيو قول وانا ما قول وانا ما أين ربوا وعرقتني تيك بدر هذه أيو ما أنت نقول راعي ما كان رزاق وحلينا هاي لهن كاقوضوها وسير وحيدين هاد مركا هورا بعد كابسة تايو أفكار هورسيها قاعد تسدع maanta ninkii aadam ka wada sheekaysanay igula hadashay Sheraton Hotel maanta nooga dhigtid nina sabaaxadeynaya oo nasiib daraan taas waxa ku tusay dadka reer Soomaaliya gabigeeduba in opportunist tahay and principle aan lahayn ay ku tusay laakiin waxa weeye xafladaha waxa la madaxweynaha aad imanaysid aanu qaranka tusayno midaysanahay siyaasadda laga daayo iyo difference-keena alaga daayo leenahay waxa weeye in dadka tusnaa inaan isku qalbinahay isku dannahay wax oo inaga dhaxeeyaan wada ilaashanana inuu jiro inaan tusnaa weeye laakiin in ajnabi dhexdiisa ku dhaxyooyootana inama fiicna qofkuna waa inuu ficilkiisa iyo afkiisu siyaasha madaxweynuhu dastuurku sheegay runtiisa dastuurku wuxuu yahay wada tashado cadaalad buu sheegay Muuse kama hayna wada tashano aniga wax qoran isku hayna waxa weeye wala dalkeena hagaajisano wala wada tashano wala ilaa maxay nagu soo kordhay maxayna hor yaala waa inta dadka mas'uuliyiintu ay isku dhaaftay wataan maanta imka laba maalmood waxaan doonayaa arrin xasaasi ah doonaya kala hadlo magaalada saay madaxtooyada الله أن كلا هذا أيوة وعن قراءة السفير كي مغانا سا إثيوبيا نوفري يركب برخط ويسو تشواوي أنا بلان راعي محمد علي بلان وعرين تكهول قبان كويري يعني هذا سوق رومتير حتى وخطر ذلك كوسو سكت إذا الحين لما وقت عبد الرحمن عبد الله على الجوهر وما نتش كشيء حفلتي وإذا ما حويني dawladii hore dad baa la xiriijay mudakar aad cid lagu soo xiriiraba heegadana waan doondoonay heegada ay doondoon heegadaas la macaamil lahaabeen cid wax sheegay heegadaas ay doona lama waa farxad weyn maanta guul baan galay waa cadawga maanta u dhacaya international airport baan sameynay laakiin mid walba sheegaya aan doonay ay sheego waxa weeye Ethiopia li 3 jeer bay imanaysaa halkan flight hargeysa saddex waxay timaadaa 7 jeer inagu waxa leena diyaarad qaran oo daalo leeyahay
وين الدال ما كان له فصحى إن يدو إثيوبيا تكتا إثيوبيا وحبا ليس ويدار سدا إن إكسكلوسيف لوغا ديغو أديس حرقية سوماليلاند إثيوبيا waxay tusisaa de maaha fair maaha cadaalad marka waxaan leenahay sida dowladba loola tartamayo intaasoo diyaar joogaan tagayaan khadkaasna waa in lagu tartamaa Xamse Jaamacire telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada Berbera